istaag maga dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday anoo ayagana raadinayo oo asagana ragiisa u diyaarsan yihiin oo maga hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayay luuqna hor imaadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwa kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaanku ku leeyahay waa i qaaday wuxuu ii geeyay rag 20 oo meel degan oo ii geeyay rag 20 ka meel degan amigu ii geeyay waxa imaado dalxa meeshaan isku aragnay waxa leeyahay nin Cismaan leeyahay oo meeshaan waxaan ku soo baranay bistoolooyinka biljinka aniga Cismaanka meesha ku soo baranay markii soo baranay ayaa midaan su'aal weydiin noor leeyahay waxaan dhahay noorow noo meeshaan qarkan iska jooga ma anfacayeen seel rabayda oo reeray ka soo tagnaaw warkii wuxuu u sheegay dalxa marka waxa leeyahay birjikada adaa ku qoran raashinka adaa noo karna subax anoo jirgaan qaado meeshii biyaha oo aadi fustooyinka yaaleen laba nin ma qori ay koolay soo weerartay ilaahay waxay u meerin dalxa iyo Cismaan ay soo baxay waxay dhaheen war ninka adil kuwiina waa kala fagteen markaas marka noqono xaga tagana wuxuu yiri waa cadarada lagu dhig ma aragtay maxaa arkaan dhahay waa wixii ilaahay qadara dhacay hadii dadkaas wax su'aashid saasa lagu galo dhayn adiga dalxa markii meeshaas aan joogno muddo 20 bari waxaanu imaaday Cabdiqaadir Muumin in afyara leerada oo nin u qaabilsan qarxaha sameentooda shabaab ku goostay Cismaan ay wada dhishteen ninkaas aan noo imaaday iyo Cabdiqaadir Muumin meesha waxaan ugu bilaabay kitaab leeyahay 100 xadiis aan ugu bilaabay meesha adi muddo 5 bari Cabdiqaadir Muumin la joognay asoo madoobaado dhamaaday meesha noo maxaadiro maxaan ku raadin marka anaga tirsanay intaas oo sanay sabrayeen alla sabro saan waa u dhahay anoo ayagana raadinayo oo asagana ragiisa u diyaarsan yihiin oo maga hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayay luuqna hor imaadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwa kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaanku ku leeyahay istaag maga dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday anoo ayagana raadinayo oo asagana ragiisa u diyaarsan yihiin oo maga hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayay luuqna hor imaadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada la soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feeraha ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwa kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaanku ku leeyahay waa i qaaday wuxuu ii geeyay rag 20 oo meel degan oo ii geeyay rag 20 ka meel degan amigu ii geeyay waxa imaado dalxa meeshaan isku aragnay waxa leeyahay nin Cismaan leeyahay oo meeshaan waxaan ku soo baranay bistoolooyinka biljinka aniga Cismaanka meesha ku soo baranay markii soo baranay ayaa midaan su'aal weydiin noor leeyahay waxaan dhahay noorow noo meeshaan qarkan iska jooga ma anfacayeen seel rabayda oo reeray ka soo tagnaaw warkii wuxuu u sheegay dalxa marka waxa leeyahay birjikada adaa ku qoran raashinka adaa noo karna subax anoo jirgaan qaado meeshii biyaha oo aadi fustooyinka yaaleen laba nin ma qori ay koolay soo weerartay ilaahay waxay u meerin dalxa iyo Cismaan ay soo baxay waxay dhaheen war ninka adil kuwiina waa kala fagteen markaas marka noqono xaga tagana wuxuu yiri waa cadarada lagu dhig ma aragtay
maxaa arkaan dhahay waa wixii ilaahay qadara dhaceen haddii dadkaas wax su'aashid saasaa lagu gala u dhahay adiga dalxaha markii meeshaas aan joogna muddo 20 beri waxaa noo imaaday cabdiqaadir muumin iyo nin afyaro la yiraahdaa oo ninka u qaabilsan qaraxyaha samayntooda shabaab oo ka goostay cismaan ay wada dhashteen ninkaasaa noo imaaday iyo cabdiqaadir muumin meesha waxaa noogu bilaabay kitaab leeyahay 100 xadiis aan noola bilaabay meesha aday muddo 5 beri cabdiqaadir muumin la joognay asagoo madoobaado dhammaaday meesha noogu maxaan ku yiraahdaa nimanka anaga tirsanay intaasoo sanay sabrayeen alla sabro saan waa u dhahay anoo ayagana raadinayo oo asagana raggiisa u diyaarsan yihiin oo magaa hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayuu luuqna hor maadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feerahay ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwo kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaan ku leeyahay istaag maga dhahay anigu bistoolada soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feerahay ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday anoo ayagana raadinayo oo asagana raggiisa u diyaarsan yihiin oo magaa hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayuu luuqna hor maadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feerahay ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwo kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaan ku leeyahay waa i qaaday wuxuu ii geeyay rag 20 oo meel degan oo ii geeyay rag 20 ka meel degan amigu ii geeyay waxa imaaday dalxa meeshaan isku aragnay waxa leeyahay nin cismaan leeyahay oo meeshaan waxaan ku soo baranay bistoolooyinka biljinka aniga cismaanka meesha ku soo baranay markii soo baranay ayaa midaan su'aal weydiin nuur leeyahay waxaan dhahay nuurow niyo meeshaan qarkaan iska jooga ma anfacayeen seel rabayda oo reeray ka soo tagnaaw warkii wuxuu u sheegay dalxa marka waxa leeyahay birjikada adaa ku qoran raashinka adaa noo karnaa subax anoo jirgaan qaado meeshii biyaha oo aadi fustooyinka yaaleen laba nin ma qori ay koolay soo weerartay ilaahay waxay u meerin dalxa iyo cismaan ay soo baxay waxay dhaheen war ninka adil kuwiina waa kala fagteen markaas marka noqono xagga tagana wuxuu yiri waa cadarada lagu dhig ma aragtay maxaa arkaan dhahay waa wixii ilaahay qadara dhaceen haddii dadkaas wax su'aashid saasaa lagu gala u dhahay adiga dalxaha markii meeshaas aan joogna muddo 20 beri waxaa noo imaaday cabdiqaadir muumin iyo nin afyaro la yiraahdaa oo ninka u qaabilsan qaraxyaha samayntooda shabaab oo ka goostay cismaan ay wada dhashteen ninkaasaa noo imaaday iyo cabdiqaadir muumin meesha waxaa noogu bilaabay kitaab leeyahay 100 xadiis aan noola bilaabay meesha aday muddo 5 beri cabdiqaadir muumin la joognay asagoo madoobaado dhammaaday meesha noogu maxaan ku yiraahdaa nimanka anaga tirsanay intaasoo sanay sabrayeen alla sabro saan waa u dhahay anoo ayagana raadinayo oo asagana raggiisa u diyaarsan yihiin oo magaa hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayuu luuqna hor maadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag maga dhahay anigu bistoolada soo baxay bistoolada maga soo baxay laba xabaan ku riday midna feerahay ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay cabdimaaliga mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwo kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaan ku leeyahay